السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaaladeenii Soomaaliyeed ee deganay magaalada Nijmegen waxaan isku baraarujinaynaa qof kasta oo magaalada degan naftaada meel ay gaaraysa ma taqaanid, waqtiga dhimanaysa ma ogid, meel lagu soo joogo war uma haysid. qof kasta anaga naga mid ah waxa mas'uul ah, waxa laga doonayaa ama laga rabaa in isaga uu silqaamo oo uu galo fikirin oo kii xabaalaha oo iska diiwaan geliyo oo isaga maaragtay uu culayska ka qaado dadka walaalaha aan marka iyaga aan fikirinka ku jirin in lagu dhiirigeliyo. intaas un baan dhihi lahay. وصلى الله على سيدنا محمد. عبد عدنان ku wareejin doonaa insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. walaalkii Cabdiladiif baa hadalkii dhameeyay waxa weeyaan dadka in la wacyi geliyo dadka magaalada degan dad badan oo xabaalaha ku jirin baa jirta marka waxa weeyaan qofka markuu dhinto dadkii kala culays buu ku hayaa 7,000 inta u dhaxaysa ayaa la rabaa marka degdeg looma helayo qofkina waa qof muslim oo maalintu dhinto maalinta ku xigtay in la aaso talaagadu ku sii jiro ma habboona marka waxa fiican intii qofkii uu dadka dhibi la 10 eero waxba kama dhinto inuu 10 eero naftiisa iska gooyo waayo qofka hadduu aaminsan yahay inuu dhimanayo waa inuu kafantiisana sii iibsadaa oo 10 eero meel sii dhigtaa uu gartaa maalinta taada ay noqoto inaan qofna lagu baahayn inaan qofna la dhibin inaan qofna albaab loo garaacin marka walaalahay oo saasaan ku talinayn dad badan oo waxa jira dhalinyar ah oo iyagu aan bixin xabaasha marka dadkaas sidaasi way naga mid dadkii sidii loo wacyi gelin lahaa ee loo oran lahaa waniyo 10 eero quba ku darso si sharaf leh ku aasaane maalinta dhimato intaas u maanu iskugu nimid waad salaamantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi